بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم حيثما حللتم. أمد الصومالية ملا جوجتان بوادين سلامي. qofkii dhibaataysan dhibka Allah ka qaado, qofkii dan leh dantiisa Allah u sahlo, inta xanuunsan Allah caafiyo, wadankiina Allah inoo badbaadiyo. Intaa kadib waxaan maanta ka hadlayaa isbedeladii dhacay daqiiqadii saacadihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya. Waxay maraysaa meel kulul bay maraysaa. meel kulul. madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihiisii waxay u egtahay inay kala socdeen. ra'iisul wasaarihii waxay u egtahay inuu sharcigii gacmihiisa ku qaatay, wadadii hore oo ay mari jireen madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaashuna uu cagta ku hayo. ra'iisul wasaaraha waxa uu gacanta u galay gacmo aan dalka iyo dadka midna u turayn. ra'iisul wasaaruhu isagoo og madaxweynaha awoodiisa, qodobka 9aad faqradiisa C ay ku qoran tahay oo ku caddahay cidda magacaabi karta ama ka qaadi karta xilka taliyayaasha ugu sarreeya ee ciidamada qaybahooda kala duwan, ciidanka qalabka sidoo dhan, ayuu wuxuu isku dayay inuu qaar ka mid a xilka ka qaado, kuwo kalena magacaabo. wuxuu og yahay inuusan cidna magacaabi karin darajadaas ah. wuxuu kaloo og yahay inuusan ka qaadi karin xilka qof darajadaas ah. qodobka C ee 9aad article 90 qodobkiisa C ama branchiga C waxaa ku cad madaxweynuhu inuu yahay qofka magacaaba, xilkana ka qaada taliyayaasha ciidamada oo dhan, commanderska oo dhan, maadaama uu yahay commander in chief, isagu uu yahay hogaamiyaha ciidamada ama taliyaha ciidanka guud iyo nabadda guud ee waddanka. isagoo og inuusan labadaas midna isagu samayn karin, cidna magacaabi karin darajadaas leh, kana qaadi karin qof darajadaas leh, ayuu wuxuu sameeyey, wuxuu xilka ka qaaday Fahad Yaasiin, wuxuuna u magacaabay booskii nin aan ka tirsanayn isla nisa ee bannaanka uga keenay oo ah Abuukar Goobe. arrintaasi sida qodobkaa ku cad waa in uu ka yimaadaa recommendation ama soo jeedin golaha wasiirada. ra-iisul wasaaruhu gola wasiirra ma shirin, ra-iisul wasaare ku-xigeen lama tashan, wasiiradii hawshaan iska lahaa lama tashan. intaasoo dhan intay isu yimaadeen oo meel fadhiisteen council of ministers ma aysan soo jeedin, madaxweynahana uma soo jeedin inuu dismissal ku sameeyo ama shaqada ka qaado, xilka qaadis iyo magacaabis inuu sameeyo uma ay soo jeedin. isagoo og marka ayuu garab maray. waxaan ognahay hay-adda sirdoonka duulaan baa lagu yahay. waxaa duulaan ku ah ajaanib tiro badan. waxaad maqlayseen oo ka maqlayseen qolyaha mucaaradka 4 sano lasoo dhaafay mar walba iyaga oo uun magacaabaya oo intaa ka warramaya oo intaa wax ka sheegaya Fahad Yaasiin intii uu noqday taliyaha nabad sugidda. markuu ku-xigeenka ahaa nasaasoo kale ahay. mararka qaarkoodna waan sheegay, qayb ka mida qabyaalad baa loo marayaa, laakiin waa ajnabiga. adduunku meeluhu iska weeraro waa national security-ga saad og tihiin caalamka oo dhan. qofka national security-ga ah madaxweynaha keensada, qofka uu ugu kalsoon yahay buu keensadaa, isagaa keensadoo soo magacawda, isagaana xilka ka qaada. ninka uu la shaqaynayo nabadgelyada waddanka uu ka advice garaynayo o kala talinayana waa madaxweynaha, ma aha ra-iisul wasaaraha. ra-isul wasaaraha intaa waa ogyahay, laakiin qorshihii Nairobi ayaa moodaa inuu ku qancay. anigu waxaan aaminsanaa inuusan ku qancin, waxaan aaminsanaa inuusan rabin, waxaan aaminsanaa inuusan arrintaas ku fakarayn,
waxaan marar badan halkan ka sheegay anoo weliba xog haya yaryar oo aan sidaan u weynayn laakiin yaryar waxaan halkan ka sheegay ra-iisul wasaaruhu inuu yahay nin fiican oo daacada oo wanaagsan inuusan isagu sharaxnayn cid kalena uusan wadan halkaana marar badan ka sheegay maxaa yeeley isagaa noo sheegay afkiisa ka sheegay meelaha badan ka sheegay privatena u sheegay publicna u sheegay qofka muslimka ana haddii uu wax sheego waa la aaminaa laakiin hadda ficilka uu hayo ficil wanaagsan maaha ra-iisul wasaaruhu wuxuu rabaa inaan doorasho dhicin allah u naxariistee gabadha la yiraahdo ikraam tahliilna waa la marsaday iyadaa loo maray qas in laga rido iyo khalkhal siyaasadeed waddanka ra-iisul wasaaruhu haddii uu dan ka leeyahay daacadna ay ka tahay gabadha xuquuqdeedii in la helo markii uu amarka bixiyey oo weliba si dowladnimada iyo qaanuunka lid ku ah uu amarka u bixiyey oo social media uu amarka bixiyey waa loo soo jawaabay waxaa la yidhi garyigil gogoshaan keenaynaa xogtii aan haynay oo dhan haddii uu gabadha ujeeddadu ahayd inaysan ahayn laba qodob baan idiin sheegayaa inaysan ahayn laakiin hadday ujeeddadu saa ahayd ra-iisul wasaaruhu wuu soo dhaweyn lahaa wuuna farxi lahaa waa mar koowaade in isaga dad ka badani la arkaan hadday wax khaldan yihiin iyo hadday wax saxan yihiin gabadha xuquuqdeeda iyo danteedaa ku jirtay marka hadduu gabadha u danaynayo arrintaa wuu aqbali lahaa guddiga amniga qaranka oo lasoo dhex dhigo buu yeeli lahaa aqbali lahaa hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah magaca baarlamaanka guddoomiyaha shacabka lagu soo qoray meesha waa lagu hanjabaya waa lagu handadayaa marka labaad farmaajo uu rabaa inuu xilkii dib ugu celiyo gacanta u geliya ha ka yeelin inuu yeelo ma ahayne inuu gabadha u daneeyo dalka u daneeyo isagu danaysto annaga noo daneeyo dalka oo dhan u daneeyo waxay ku jirta inuu aqbalo ma yeelin dan kaluu leeyahay marka taa maaha tii gabadha maaha tii waddanka maaha waa mid kale waa miduu isagu og yahay cabdiraxmaan cabdishakuurna isla og yihiin kenya iyo waddamo kalena ay isla og yihiin qodobka labaad haddii uu gabadha xuquuqdeeda raadinayo oo ay runka tahay oo ma garanaysaa ujeeddadu ay tahay in ma garanaysaa gabadha xuquuqdeedii la raadiyo warqadda faayarkaa markuu qoray akhriya wuxuu ku qoray nisa waxay caqabad ku tahay doorashooyinka oo maxaa gabadha iyo doorashooyinka iska galay doorashooyinka shaqadaadii bay ahayd xaggee bay kaga jirtaa gabadhu doorashooyinka gabar baa la dilay oo nisaa dishay gabar baa la dilay oo shabaab baa dilay halkaas arrintu taagneyd qodobka saddexaad ninkii qoladii aad tuhmayseen oo ahayd nisa oo aad lahaydeen nisaa dishay cabdiraxmaan baa sheega ra-iisul wasaaruhu ma sheegin cabdiraxmaan iyo kuwo kalaa sheega kuwaas ay sheegayeen oo si babliga u sheegayeen ra-iisul wasaarahana la talinayo oo la socda ayna isku fikir hadda yihiin ma arkaysaa hadday nisa dishay oo nise maxaa u cayrinaysaa haddaa cayrisidso keiskii xirmi mayo gabadha xuquuqdeedii halkaa ku dhumi mayso ninkii waa la cayriyay wuu iska tegay khalaas waa dhoofay berri buu dhoofay waa iska tegay maxaa talaa gabadha xuquuqdeedii halkaasay ku dhimanaysaa dadkii marka gabadha lagu soo geliyey duulaankii buuqii qaylada ogaada gabadha baroorta orgiga ka weyn looma socdo gabadha ujeeddaduna maaha wax loo danaynayo iyadana maaha dalka waxaa la rabaa oo rooble lagu qanciyey war dalka waaba qabsan kartaa kenya waxyaabaha ay keentay waxaa ka mid a dalka doorasho ayay ka dhicin waxa dhan oo loo isticmaalay gabadhaana waxa weeye allah u naxariistay iyadaiyo reerkeediina dhibaatada loogu geystay oo magacoodii iyo intaas loogu rafanayo in dalka uu qalalaase ka dhaco si aan doorasho u dhicin laba arrimood baa ka xasilaysa marka koowaad rooble inuu rabo inuu xilka sii dheeraysto prime minister sii ahaado maadaama uu sheegay inuu sharaxan yahay haddii 4 sano kadib haddii madaxweyne cusub la doorto oo aan farmaajo ahayn isagaa keensan doona ra-iisul wasaarihiisa farmaajo haddii la doortana hadda isaga ka dhigan maayo ra-iisul wasaare oo way u caddaatay sababtoo ah waa nin sharaxan oo isaga hadalku ka fakaday murashax baan ahay madaxweynahaanaan la tartami doonaa hadda yimaada madaxweynahaas hadduu farmaajo noqdo dee nin la tartami doono isku aadinaya 4 sano isaga uu la shaqaynayo siduu isagu u guulaysan lahaa ma keensanayo wuxuu keensanayaa nin kale therefore markuu arkay
inuusan ra-iisul wasaare sii ahaanayn doorashada waa inuu gaabiyaayo hakiyaa waa inuu lugjiid ku sameeyaa waa inuu cid kastoo diidanayd oo waagii hore isagu uu soo kaxeeyey oo soo dhoweeyey oo hadda kala shaqeeyaa inay diidaan oo hakiyaan arrintaasi rooblow meel ka dhac weeye waa khiyaamo qaran wax loo baahan yahana maaha ogow dadkii wax khiyaamayn jiray ilaahay subxaana watacaala in qur-aanka kaga hadlay walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ilaa biahli qofkii dhagar iyo khiyaamo keena isagay kusoo laabataa dabcan anigu waxaan kugula talinayaa still there is a window shirarka hadda intaad u yeertid taliyayaasha aad leedahay hawlihiina wata hawlahoodii way wataan anaa idin xukume madaxweynuhu idinma xukumo miyaa rabtaa inaad sawir ah bixisid adiga soo madaxweynuhu kuma xukumo haddaadan adigu ogolayn inaad madaxweynuhu ku xukumo amarku siiyo ayagu see u yeelayaan amarkaaga haddii qof walbaa marka qofka ka koreeya amarkiisa diido aaway dowladnimadii aaway kala sarrayntii hierarkigii aaway kala dambayntii meeday qaanuunkii iyo sharcigii mee soo waxaasoo dhan ka kac maaha soo fawdan maaha intaa waxaan leeyahay rooblow weli rajaa leedahay kadah dalka kadah qalalaase iyo khalkhal siyaasadeed dalkaa gelin waa kugula talinaya farmaajo waxaan kula talinaya ninkan la yidhaahdo rooble ra-iisul wasaarahaagii weeye haddii uu hadda dhibsaday fahad yaasiin anigu hawlo kale aan ogahayo kuwo kaluu rabaa oo farxaan qaroole iyo ay ka mid yihiin inuu xilka ka qaado oo isku dayayay baryahan oo dhan taliyaha ciidanka lugta magaranaysaa odawaa waxaasoo dhan inuu xilka ka qaaduu rabaayo rag isaga asxaab ay wada yihiin iyo rag uu isagu wato u geysto si uu u sameeyey inqilaab kulliya oo dalka uu inqilaabo rooblow waxaan ku leeyahay waa ku degdegtay arrintaa saasna uma shaqaynayso dhankaasna u dhici mayso waxaan kugula talinayaa weli rajay leedahay soo fariiso gogosha madaxweynaha waxaan kula talinaya u yeer ra-iisul wasaaraha u yeer la fariiso waxa uu rabo u fuli war ra-iisul wasaare maxaa rabtaa ninkaanaan nacay kanaana arki karin khalaas waa ka leexinaynaa waa ka heshiinaynaa waa ka leexinaynaa ku laabo shaqadaadii doorashadii qabo hawshii qabo dheh madaxweyne u yeer ra-iisul wasaaraha soo fariisi wada hadla rag shalay iswatay oo asxaab ahaydeen maanta inaad mucaaradkii iyo muxaafidkii la kala safataan oo aad laba saf kala tihiin idiinma fiicna u yeer ra-iisul wasaaraha asxaabtiisa ugu yeer odayaashii reer muqdisho waxaan leeyahay yaan la fiirsan fidnadu bilowgeeda iyo madaxa la qabtaa mar hadday ku dhaafto daba la qabto male mar hadday ku dhaafto daba la qabto male muqdisho uma baahna buuq khalkhal siyaasadeedna uma baahna rooble waxaan kula talinayaa dowladnimadan muddaa la soo waday marba meel bay maraysay 4 sano oo lasoo dhaafay waxaa la ilaalinayey oo la rabay in la ilaaliyo ay ahayd dowladnimada iyo institutionska in la ilaaliyo oo nidaamka iyo kala dambaynta aan lagu ciyaarin adigu berri baa tegaysaa farmaajo berri buu tegayaa fahad berri buu tegayaa maxaa dalka uga tegaysaan arrintaas rooblow inaad ka fakirtid baa laga rabaa legasigaa ka tegaysid ma ra-iisul wasaarihii kastoo yimaada inuu madaxweynaha isku taagaa ma legasigaasaad rabtaa inaad adigu example u noqotid role model u noqotid aawe rooble nabadoon aawe rooblii nabadoonka ahaayo maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu goortay kala istaageen isku soo dhaweeye wixii isku dubariday oo khalkhal siyaasadeed dalka ka saaray aawe rooblihii colaadii damiyey iyo buuqii cabdiraxmaan cabdishakuur iyo mahad salaad ay kariyeed gareeyeen iyo xasan sheikh iyo khayre oo xabaddu ka dhacday aaway rooblihii damiyey aaway rooblihii nabadeeyey aaway muqdisho nabadeeyey oo isu soo dhaweeyey oo magaranaysaa nabadgelyada keenay oo dadkii isu keenay oo saxiixay doorashada cusub wadadeedii saxiixay oo magaranaysaa dowlad goboleedyada la fariisanayay oo muddo intay isku rafaadeen iyagii madaxweynuhu isagu ka keenay xalka aaway nabadoonkii rooblow wixii ma waxaa ku gabagabaynaysaa dhooqo ma waxaa ku gabagabaynaysaa inaad dhiiqo ku walaaqdo kadah rooblow kadah anigoo kula talinayaa talay iga tahay dalkay dan u tahay aday danku u tahay haddaa khiyaamo isku daydid haddaa dhagar isku daydid khayaanoole ma liibaano ilaahay subxaana watacaala aayaddaas si fiican dhigtaada u fur walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ilaa biahli
adigii madaxweynuhu way isqaban kartaan fahad yaasiin iyo adigu way isqaban kartaan way is ognahay baroorta orgiga ka weyn gabadha looma socdo fahad baa u socotaa taargeedii ma aha baa tiri maalin dhaweyd hadduusan taarget awal ku ahayn muxuu hadda kuugu noqday warqadaada dib u akhri warqadaha laga soo qorayo xafiiska xasan sheekh kuma anfacayaan xasan sheekh kuma magacaabin shaqo kuma dhiibin waxaa la yaab leh waan aada ula yaabanahay fahad yaasiin waa ninkii rooble u keenay farmaajo oo yidhi ninkaana nin wanaagsana ninkaana shaqada qaban kara ninkaana diyaar u ah isagoo aan marka awood iyo maamul iyo siyaasad midna soo qaban ninka madaxweynaha ka gaday waa isaga ninkii buu leeyahay hadda waa cayrinaya abaalkaagu ma saasaa rooble ma cabdiraxmaan abshakuur baa waxaa ku raaligelinaysaa ninkii axsaanka kuu galay inaad adigu isaga ku qancisid baad ku raaligelinaysaa iyo mucaaradka iyo kenya come on man come on waxyaabaha qaarkood below the belt wey rooblow waad ka noqon kartaa wax walbo xumaada caano daatay hambadaa la qabtaa caano daatay hambadaa la qabtaa haysraacin ma garanaysaa kada dalkana ha qasin khalalaasana ha gelin khalkhal siyaasadeedna ha abuurin kada fidno waad og tahay qofka kiciya ila lacnaday waad og tahay oo malcuun uu yahay wax alla wixii halkaa ka dhashana uu mas-uul ka yahay burbur iyo dalkii inuu dib u laabto hayna ku jirrabin dalkeenna dad badan oo duulaana ku jira kenya ku jirta kenya walaalkaa maaha hadday wax kuu sheegeen hadday kaa dhaadhiciyeen madaxweyne ahaanaysaa iyo adaa iska joogaya ninkaan iska tuuro ha arrintu saa uma sahlana inay saa kugu shaqayn bayna u badan tahay waa kuu digayaa iska dhaaf ha qaadan tala maaha tala xun wey cid kugu raacayso soomaaliyeedna ma jirto khiyaamo iyo boob iyo inqilaab ma arkaysaa iska daa faraha ka qaad haddaad dan ka leedahay doorashada oo aad rabtid inaad is-sharaxdid dee bareer oo ka leexo meesha ku wareeji ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxaad tiraahdaa murashax baan ahay nasiibkaaga ciyaar ka leexo meesha waxaa qabtaa calafkaaga haddii alla kuu qadaray waa qaadanaysaa haddaan alla kuu qadarin qaadan maysid laakiin dhagar iyo khiyaamo iyo destruction from within inaad inta gudaha ka burburisid dowladnimadii aad meel cidla a dhigtid adigana dan kuguma jirto dalkaana dan uguma jirto dadkaas soomaalida ahoo masaakiintoo dhibaataysan oo 20 sano soo baaba-ayana dan uguma jirto ciidamada iyo taliyayaasha waxaan kula talinayaa amar kasta oo khaldan yaan la qaadan amar kasta oo khaldan yaan la qaadan waa taqaaniin hierarkiga iyo kala sarreynta iyo kala dambeynta ra-iisul wasaaruhu hadduu isagu diido inuu kala dambeynta iyo kala sarreynta aqbalo idinkuna ha ka yeelinina kala dambeynta iyo kala sarreynta iyo kala aqbalka taasaa ka dhalanaysa halkaasa ka dhalan fawdaa imaanaysa ra-iisul wasaare fawdaa la yihahda arrintaa ka dah dalka ka dah intaasaan ku talinaya wax badan baan ogahay ood ra-iisul wasaare adna og tahay meesha u socotid meel fiican maaha ka soo laabo iska dah dad hore baa ku lugo-ay waxna kama hayaan marar horoo badan baasaa la isugu dayay in wax loo walaaqo mana shaqayn raggii kaa horreeyay taariikhdoodii dib u akhri taarikh yuciidu nafsah yacni taarikhdu way isa soo celcelisaa ma aanaan rabin maanta ra-iisul wasaare iyo madaxweyne inaysa haystaan waxaan rabnay inaan ka kornay oo arrintaa ka kobcnay oo qof walba yaqaan nidaamkiisa iyo meeshu kaga aadan yahay nidaamka iyo systemka intaasaan oranaya insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu i hope inaa iga qaadatid talooyinkan ku siinayo oo aad kasoo noqotid i hope madaxweynaha iyo adigu inaad wada fadhiisataan heshiisaan go-aan aad ku midaysan tihiinna wixii la bedelayana ku bedeshaan wixii la magacaabayana ku magacawdaan intaasaan kugula talinaya wayna kuu diyaarsan tahay oo waan ogahay in lagu ogol yahay ha cararine meelaha waxba kaa jirin waxba ha ka doonane imow madaxtooyada asalaamu calaykum waraxmatullah